بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waa salaamaya. waxaan leeyahay dhammaan Ilaahay aafada maanta socota dunida dhanka jirta Allah naga badbaadiyo. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo hal qodob oo ku saabsan arrimaha caafimaadka iyo cudurka coronavirus oo adduunyada dhan maanta ay la wada cabanayso. walaalayaal dalkeenu saan fariintii hore baan ku sheegay dalkeenna waxaa ilaahay unbaa badbaadinayay caqabadaha iyo dhibaatooyinka adduunyada ay la tahaadaysaa ilaaha naga badbaadiyey muddada dhibaatada aan kusoo jirnay oo dhan 100,000 kun ayaa dalalka qaarkood tsunami uga dhintay kuwa kale ayaa kumanaan waxaa uga dhintay fulkaano qarxa iyo dhulgariir kuwa kale ayaa kumanaan waxay uga dhinteen buuro carro ah oo soo dumay oo magaalooyin daboolay intaasoo dhan ilaahay ayaa naga badbaadiyay annaga maanan arag waxaan aragnay fatahaadaha webiyada iyo abaaraan aragnay fatahaadaha webiyada iyo abaarada waa wax la saadaali karo loo jeedo markay soo socdaan abaartana waa la garanayaa xilliga ay soo socoto bilaabatay iyo sida u sii maalin walba fatahaadahan waa la garanayaa webi markuu fatahaad rabo laakiin waxaan aan la garanayn oo waxa yimid hadda qofka uu hayo cudurkan lama garanayo muddo dhan ayuu cudurka haynayaa uu faafinayaa lamana garanayo waxaa marka u baahan tahay arrintaas arrin ijtihaada oo dadaal ah oo dadka dhan ay u guntadaan u baanta dadkeena Soomaaliyeed dhaqankeena iyo habnololeedkeena iyo waxeena inaan wax ka bedelno waa inaan u dhimanno maaha noloshii aan baranay oo caadiga ahayd markii duruufo adag ay yimaadeen maanta inkastoo anigu aan ka maqanahay magaalada Muqdisho wararka aan keenayo waxay tahay in nolosha caadi tahay hoteelada sidii loo tago hoteelada aroosyada lagu qabsado xafladihii iyo caweysidii habeenadii meelaha lagu dhafri jiro lagu dhafro fadhi ku dirariyadu inay meelaha ay ka jiri jireen oo sidooda u jiraan walaalayaal waxaasoo dhan waxa u sahla geedkan inuu dunida halligo oo dadka kumanaanka ay uga dhamaadeen waxay uga dhamaadeen tallaabo ay u qaadi waayeen dhaqsi in ay u qaadi waayeen waxa afka qalaad loogu bixiyo social distancing ama bulshadu inay kala fogaato arrin aad iyo aad muhiim u ah dadka Soomaaliyeed mar kale walaalayaal waxaan leeyahay muddo kooban waaye isu tagga hala joojiyo xafladaha hala joojiyo caweyska habeenadii la daahayo la caweynayo hala joojiyo fadhi ku dirirka asagoo awalba aan dib badan lahay hala joojiyo dadku muxuu ahaa wixii hore laga hadlay oo nadaafadda iyo gacmo dhaqashada iyo is ilaalinta iyo gacanta meeshaad ku taabanaysa iyo indhahaaga iyo sankaaga iyo afkaaga inaad gacmahaaga ku taabto waxaasoo dhan hore dad badan oo caalamka jooga iyo dad badan oo Soomaali oo mas'uuliyiin uga soo hadleen maanta waxay taagan tahay meeshaas waxaan dadka Soomaaliyeed mar kale aan ka codsanayaa ugu baaqayaa in taxadir la sameeyo wax kale oo looga hortagi karo ma laha inaanan dadku ayna isu imaanin oo aan la isqaadsiinin oo aan la isku qufacin oo aan maxaa salaanta gacanta la isgelinay aan maxaa lagu waxay waaye muddo waaye ilaahay wuu naga gudbinayaa wuu naga waxaynayaa walaalayaal waa aragteen cudurkan culayska uu keenay xaramka ilaahay oo weligii aan laga maqnaanin inuu cidlo yahay waa aragteen waxaana loo yeelay muslimiin inaanay halaagsamin dad inaanu dhimanin inaanu baabin annagana sidoo kale inaan taxadirnaan laga raba salaadu say kugu qabataa loo tukada ha la yiri waqti adagaa la jooga masaajidda inaan maxaan ku iraahdaa xadidno lafteeda nolosha muslimka qofka muslimka badbaadadiisa wax walba loo horeeyaa walaalayaal cibaadaduna meel walba ku ansaxay waliba waqtiyada shidada ah ilaahay fursado badan ayuu diinta nasiixada ugu siiyay oo wanaagsan oo aan wax ku qaban karno dadka Soomaaliyeed mar kale walaalayaal waxaan leeyahay cudurka ma sahlanayaan la sahlan cudurku ma sahlanayaan la sahlanin ilaahay naga badbaadiyo quraanka akhriskiisa ha la badiyo alla bariga ha la badiyo caabudaad ilaahay ha la badiyo waxyaabaha muxuu ahay dhibka badan oo aan ku haboonayn cibaadada oo dhan ha laga joogo xanta iyo dilka iyo isnacaybka iyo iskaraahaysiga iyo colaadaha socdo oo aan ayagana mar kale si gooni uga hadli doono ha la joojiyo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan magaalooyinka dadka jooga dadka baadiyaha sidooda ay u kala fogfog yihiin dadka magaalooyinka joogan si gaar ah u la hadlaya magaalada Muqdisho ay ugu horeyso iyo magaalooyin kale waaweyn oo Soomaalida oo dhan dhammaan dadka joogo baalkan reer magaalnimada iyo magaalo joognimada waxyaabaha faafiyo oo fududeeyo ka mid yahay walaalayaal mafrashada qaadka la joojiyo ma ayan ficneen awal bay haddana hadiiba nafta ay khatar gelinayaan la joojiyo waxaan soo tilmaanay isu tagga oo dhan la joojiyo meeshii aan laga maarmi karin la yareeyo ilaahay idinkiis muddo kooban waaye barashadu waa in gaabana la yiri uu dhamaanaya hadii alla bariga aan badino akhriska quraanka aan badino maxaan ku iraahdaa istighfaarada iyo rabbi u noqoshada aan badino
إلهي إذن كسوة كقدبينا آدي آدا أمها سنتين الله بالبادية الصومالية ومدى المسلمين تا يا عالم كودن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.